إبراهيم موسى ديدر إبراهيم واحد وضعها كاريون واحد كدقتي واحد وشرح سيدي gaariyo kale bal nooga waran sidaad uga dhigtay iyo hawlaas horta markii ugu horeysay aan iibsaday wajaalan ka iibsaday dabadeetna niyo horta waxaan mar haduu kaaroonaya in amal qurxeed ka dayo ayaan markii ugu horeysay indisay laba muraadood baan bartan ku xidhay bartaasi laba yaro muraadood ka bilaabmeen markaan laba bilood aan wajaale mar ku watay ayaan oromadii ka yaabay sidii deeqaab aan waxba looga qaadi karin markaan u arkay ayaaban iska soo faaruq raacday gaariga ani gaari maan soo saarnay isagaan iska soo raacayba calaashan dirawal ana iska soo kaxaystay lugiisu ku yimid markaa gaarigu xagan kadib muraadaan labada muraadood baan hadana dhigay markii aan hargeysay mid 18 May baan hadana maray kadib markaa aan madaxtooye agagaarkeyga u malaga duubay maalinta sidii baan ilaa xeeb ku tagay looya cada ayaan hadana isagoo calanku meelaha taagan ayaan frontier kaga shaqeynayay muddo 2 bilood kadib markii 18 May dambe soo dhawaatay ayaan soo kala celiyay ma horta Djibouti ma galay 2 bilood baan idin joogay waan soo kala celiyay kadib 18 May kan ka soo gaaray waayo anigoo kaaryoonka wata baan horta daroodhaba bartayga qaaday markaasuu ila yaabay uu yiri waa xagii waxaan ku yiri 6 bastoon iyo 4 bastoon iyo 5 bastoon oo gilin hore yaacay haamar bay dhalinyartu u yaqaanaan gaarigaygan ku yiri 8 bastoon ma wata sida awgeed waan daba galanayaa ee bartayga qaad baan ku markaas ila yaabay wuxuu igu yiri waa sidii badaha ugu qabteen xaggan gaariga u barka gare xaggan galaabaan idho meesha waabka xagga soo jeeday ayaan dhigtay markaa gaariga kadib habeenkii markaan ilaa 10 ay gaadhay ayuu igu yiri hadda Hargeysa ku noqonaysan hagaagsan haddii kalena qofku xidha lagu yeeri markaasaan ku yiri niyow horta nin gaarigan wata hadii calladii waday doonaa iska bay xawlaadaan ma waalna oo waayo kamaradaha iyo dee moomiladu mar walba way ninkan duubaya sida awgeed ma waalnii xaragan ku maray abaan ku yiri anigoo Soomaaliland ku sii qoraya ilaa inta laga gaaray niista ayaan xusaya baan ku yiri calaashan socod dheer inaan ku galo oo masaafo aan tilmaami karo hadhow aan idhaa cagtan kaliya lugtan kaliya ku soo maray intaas soo meelood amba intaas soo dee masaafo kadib habeenkii sidii buu hayay waa iska soo noqday istaanka Djibouti baan nimid 4 galabnimo markay tahay maalintii dambe ayaan dusha ka maro biyashiinaan ku gaaray gaariga biyashiinaayay inuu ka galniiste ku soo tur hamar bad wataay ayaaba se u sheegay dhalinyartuna xaggan hamar bay u yaqaaneen mooyaan qasgaya sinniista u dulmaree saan buuba uga dulboodayba markaas aan ka soo baxay waa bar karastay kadib xaqii baan ag fadhiistay waxaan ku yiri niyo wadadii diiratay mee markaas ay igu yiraahdeen wadadii diirato maxaad ka doonaysay waxaan ku yiri niyo waan daba galaynayaa de oo wadadan doonaya inaan raaco waxa tagaysaa ilaa Djibouti waa ma ka baad ku tagaysaa de hawaayo wayniga hamarba ku sheegay baan ku yiri saan u mareen de ilaa inta satarkan baan ku qoriyaa Soomaaliland calaashaano cagtan kaliya wata kadib sidii bay hayeen way la yaabeen ala kulli xaal dhan walba adana muumilada ka duubayeen de ninkaas ma dawaqsadaan ku yiri shaarku haduu igu yaraawnay mooyaan kadib waxay yiraahdeen gaari baan ku saarnaa sidii bay gaariga saareen frontier-ka ugu horeeyay loo yacadila maxaan ku ahay Djibouti markii ugu horeysay saasaan ku tagay rarkii ugu horeeyay baarkii ugu horeeyay aan dhigtay ayay 3 kaaroonay soo daba dhigteen kadib station-ka ayuu ka soo kacay labadii 3 kaaroonay dambe waa mid iyo 3diiba qaaday anna kursi baan ka eeganaya kaaga haduu qaado baan leeyahay dirawalku waa aniga undhe oo uu ka xeey gaariga wuxuu ku haystan uu ku sheegi doonaa kadib kaygii kuma ba soo noqonba inamadii baa ka daba tagay 3 kaaroonay waxana maxal lagu haystaa waxa ku yiri gaarigaasi foomka loo yaacay foodo hore haystaa ka daba qaada buu ku yiri amba sidaas oo kale ka yeela kadib gudoomiyaha xagga iga bixiyeen dhalinyartii markaa aan saa kaarnaasha looga qaaday kadib lowdkii horeeyeen qaaday waxaan tagay aan bartii waxaan tagay aan maxay ahaydeen tii Djibouti soo jeeday frontier-kii rarkii horeeyaan oo sidoon xariga laga furin ayuu labaalay soo kacay Djibouti markaasuu moomilkiisii waxba ku duubay markaasuu wakaalay kan mooteerkun baa ka dhimanay oo kor buu eegay calankii soo taagan buu arkay markaasuu yiri kaayagii baa ka dhimanay intaan dariiqa la xidhin bay ahayd sanadkii ugu horeeyay 3 sano wata gaarigo markaasaan ku yiri de waaye jaar baynu nee de jaar baan frontier-kan ka shaqeynayay de way walaaloobiuna keenay baan ku yiri aan xaga aantiga kale faaruqa dhigay markaasuu labaalay ilaana keenay laba kale la shaqeynayna waxay ana keenay kadib ilaa 9 habeenimo iyadoo 6 dariiqa la furay baa la sii deyn jiray waa gaari caruuskii baa loo jiray xagaana kadib 2 bilood markaas sidii ku shaqeeyay ayaa baan iska raacay ilaa Djibouti ma ladan ku haystay anigoo xaajidaha inaan saaradee aan istoobyadu inaga jabaan badiidantay kadib xiraadii markaan sii socdo ayaa waxay ga dabay mid xaajiyad markaa rakaab sidoo meelaha maqribkii soo baxday
waxaa dhacday inay gabadha garanaysay oo markaa jaad xagaa ku yimi jirtay ayaa tii waan soo gaadhay Soomaalilaantii waa baljoog bay igu tiri meelahan baad wax keentay mise ilaa Djibouti weeyaan markaasaan ku dhumay oo isma noqonane dee xaajadii ma qaadi kartee ilaa Djibouti weeyaan waa salaamantii baan ku uri markaas waa malaa uu waalay ka saar xaajada kishbigiyo dirawalkii baa iga dhigi markii isku adkeeyeen ayaan samacada kala baxay oo saareen taayirkiisa xagga sare shiraaq xagga sare la saaraa murti xaajada Djibouti alaabta xagga sare saareen orshilo ku xidhay taayirka xagga ka soo mudayay ana dusha hoostiisa fadhiyay markaasaan arkay inuu leegleeganayeen kala xagga ka eegi sidii ma Djibouti ku galay 2 bilood markaan joogan soo kala celiyay sanadkan dhaweeyay imkaan ku jirno bishii sidan oo kale ahayd markuu dhulku dee sidan oo kale bilaa suuq u noqday dee bilaa waxba ayaan sii daayay ilaa haddana xeeb kadib frontier-kii xidhan ma tagi istaankii horeeyay sidaa dee wax uga qaadeen xagga dee waxay galaan fursad ay kuna leeyahay hadda dariiqii laga xidhay ma aqal walba xibsay 2 kaarooni 40 kaarooni aan ugu tagay xaggan 2 kaarooni kaga ogaa kadib waxa dhacday in lowrkiiba ceeriga ugu noqdo xaggaasina lowrkii horeeyay qaaday ayaa markaasi odaga jaamac baa la yidhaha markaasoo xagga Djibouti dee frontier wuxuu haystaa dee maxaa la yidhahdaa China-ga xagga sokade ayaan sidaa dee baarka u dabagalay kaaronaashu 20 yaana maqrib intaan ka sii dabadaayay meel casr ka sii dabadaayay cadceedaan u diidaa dee calankeeda u baxayo xilamada ayaana baarkii 22 baan noqday waa xagga rar ka soo socda galabnimo kadib jaamac baa arkay gaarigayga oo calaamad soo taagay shantaasiba soo taagay badina ku soo noqotay uu soo orday dib u qaad buu igu yiri gaarigaadu ka bax meesha reefas baan dib u yar galay markaasaan dib u yar socday gabadh baa tiri markaa gabadhi maalintii horena gaariga soo saaray u lahayd ayaa ku tii war jaamacow macalinkayga diidantii markaasuu dee haa macalan baa calan laa keenaa buuri calanku calan laa keenay waa ninku waa miskiina ka shaqaysay waa kan calamuba dee waa wada calan beed maxaa miskiin ka dhigay buuri waxa igu kalifay dee horta waxaaga inaad qurxiso ayaa saxa bilic baan ku soo noqdaa bilic haddaan dhuxul xitaa qaado waxba ma qaadid baa laygu yidhaahdaa waayo bilicdaasaan doonayaa dee aan ku xaragoodo anigoo wax sida ayaan u baahanahay dee kadib waxay igu kalifay inaan waxayga qurxisto sida shaarkayga dhididka aan ugu ilaaliyo dee ayaan hindisay kadib ina sadh allaysiiyana waa niyeystay oo waa kaa dee stoobkaada oo adee arkaya sbiidhka dee anoo kalean wataay kaaroona 7 cisho maan watan calashaan inuu gaariyi yahay oo sadhba uu yahay xaggaa sadh baan u qaanimo jaale markaan ka soo socday xaggana haamar bay dhaynootuu bixiyeen kuwa yareen dhacadday yidhaahdaan faraska cad barbaraya ayaa idhaa habaysane waxaan ugu maqaalaa in marka aad geerashada gawaarida loo dhigoo kale habeenkii lagu xareeyo inaad u dhigto lacag ka bixiso waayo habeenkii ugu horreysay geerashkii ugu horreeyeen galay fooda horaan istaagay anigoo bilbidhaha soo tuurtay balse gaari baan kaa dambeeya baan lahayn baan ka soo dhaadhacay inankii geerishka ayaan u imid waxaan ku idhi saaxiib gaarigaa taagan albaabka ma arkaysaa gaarigee buu yidhi markaasuu seeyaalay arkay wuu dee sheegay haa buu yidhi kaaronaha buu yidhi saan wakaan aqaa kaaronaha iyo waxaana dee wuu ka tegaan idhaa moogtay yaa wuu ka tegey balse waa idhi kaaronaha idhaa moogtay saan anigoo markaas jilcinaya waxbaan u baahane yaan idhi haa kadib wuxuu yidhi waxaan ku yidhi dee gaarigaasaan doonayaa saaxiib inaad ii soo dhigto balse maxaa baabuurka la qaadaa baan idhi dee gaariga noolkii maxaan ku idhaa imsaa lagu dhigaa dee markaa maalmaha suuqaa dardarhaayoo dee jeebad walba waa ku jirtay oo isna ay noogu soo biireen dee waxaan oo kaaroona tirsani may jirin dee yaa kadib waxaa dhacday inuu yidhaahdo iska soo dhigo habeenkaa waxba ima weydiin waa soo dhigtay habeenkii labaadna dee uu doonayaa gaarigi inuu soo galo baarkigii soomaa waan soo galay baarkigii xalay gal yidhi baan iska wada galay waan ka soo dhaadhacay markaasaan ku idhi areedhe dee habeen walba soo socon maaye dee inaar maxaan bixiyaa baan ku idhi been horta qofka lagama sheego lamana sheego lamana jeclaadee wuxuu igu yidhi ilaa weligaa dhigaana kaa daayey cid ma ka codsatay inay gaari kuu iibiyaan oo aad ku beddesho gaarigan ama xukuumaddan ama cid kale oo aad ka dambatay alla waan ka codsaday oo waxaan ka codsaday horta rabbigaan ka codsaday xaggaa hore waxaa ku qoran cidna uma baahni aanan laahayn taasi awgeed waxay ku sheegaysaa inaan rabbiga ka codsaday mar hore balse dadka barhkood markaan dee ay igu yidhaahdaan dee ma garanaysaa ay waraysanayaanba dee waxay idhahdaan madaxweynehena maxaad ka codsanaysaa dee ijiina saaraan beri hore idhi iminka sanad ka horraysa yaan ku idhi ijiinkii baa iga dhimane dee madaxweyne ijiinka gaadhiga ii saaraan waraabiya bastoonnade ijiin ma laha waa la arkaya lama arka laakiin macnaha ijiinka lagu saaraya dee wuxuu yahay calaashaan waa hadalka dee intii aan waxaaga tuuri lahaa ee odhan lahaa sood macaane iibinaytiina oo baalaha tumade xarraga u dhex joogsada aarsawkaa wixii si tuuraa la odhanayaa balse
asha aniga oo haysta gaadhigaygii wata ijiinsaar dee hadduu qaadi karo wey waa ijiinsaar baa taagan xaggaa sare imisaa gudban xagga dambe waad aragtaa ilaa samcadda ilaa ka kale ka sii hooseeya waad aragtaa khaanadda haddaan iminka furo xitaa qaar cusub baad ugu tegaysaa leenana markay xadiis tahay oo kale waa sidan awey xaggan xagga kelimada tawxiidka isku barataan kullidooda qabyaaladda iyo qurunka iyo waxa idinku dhex jirana joojiya haddaad wanaag maca rikoorkii weeye haa maca rikoorkii buu leeyahy indhihii buu leeyahy muraayaddii buu leeyahay tii fogeysada ahayd ee muraayaddii watan baabuurta caadigii tani waa bedbedha iyo weecadka iyaga joogta kuma taabtee ay taabto kuwan siiqyada waan jabayaan haa waxaan ka dhigay kuwan budhadhkii yaraa ee naytiin sood macaanaha ag ciyaarayay markaa sidaa awgeed sood macaanayna niyeystay waad aragtaa marka waa kama talo kale waa gaadhiyoo kale wey waa sidaa weeye balse sakaxad ka yaroon ayaan rabbiga mar walba weydiistaa habeenkii oo kale ma shaqaysa habeenkii waayo indhacaddaa soo qaadanayaan idhaa isagoo afartaa indhood ay xagga hore yaallaan wixii ayna saaraan oo dhan laagaha inakoo godka iska ilaalinana ayaan weliba sida dhinaca ugu tuurnaa silixajaalaan ka qabnay gaadhiga habeenkii waad ku shaqaysa ilaa 12 ilaa dukaanadu xidhayaan waan jaamudiyaa gebigiisa waan iska ag joogaa kadibna isagaan iska daawadaaba anu kadib waayo dee dhallinyartoo dhan baa soo dhaweysay ugu dambayntii maxaad u soo jeedinaysaa bulshada iyo xukuumadda iyo weliba dadka maxaad u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa horta anigoo horta shicibkii dee dadweynuhu wayna arkaan waxaan hindisnayna way arkaan dee horta bal horta caynadda aan u dhignay gaadhiga markay eegaan dee lu keliyaan galbeed oo dhan ku soo koobay bari baa hadhay wey gaadhigaan ku koobi lahaa baan doonayaa